السلام عليكم كسو دوادا كانالكا هامي ميديا kadib faafitaankii caabuqa corona waxaa soo ifbaxay dhacdooyin la yaab leh kuwo murug leh iyo kuwo farxad lehba haddaba daawade waxaan halkan idinku hayaa jawaabta ah yaa xirtay face mask ugu qaalisan dunida markii uu soo ifbaxay cudurkan coronavirus oo saameeyay noloshii adduunkoodii Shankar Kurhandi oo ah ganacsade ka soo jeeda dalka India ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyay ee xirtay face mask-kaas oo ah mid dahabi ah kaasoo gaaraya ilaa 60 gram qiimihiisuna gaarayo $4,000 si uu iskaga ilaaliyo cudurka coronavirus haddaba daawade waxaynu wada ognahay dadka oo idin inay wada xiranayeen maro yar si ay isaga ilaaliyaan cudurka balse Shankar wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee cudurka iskaga ilaaliya dahab arinta kale la yaab kale ayaa ah Shankar inuu ka soo jeedo dalka India inuu wada ognahay inuu yahay dalka ugu badan ee dadka faqriga ah ay ka soo jeedaan dalka India waxaa laga helayaa malaayiin ku nool laamiyada kuwaas oo aanan haysan hoy ay u hoydaan sidoo kale tana aanay heli karin $1 ama $2 ay maalintii noloshooda ku dabaraan sidoo kale waxaa xusid mudan dalka India inuu leeyahay milyaneero aad u tiro badan inuu leeyahay aktaro waaweyn oo magac leh lacag badanna ka sameeyay jilinka ay sameeyaan haddaba waxaa laga yaabaa dalka India inay hal magaalo leedahay milyaneero tiro badan iyo dad badan oo nolosha meesha ugu hooseysa ka jooga haddaba dhibaatooyinka ugu weyn ee dadkaasi haystaa waxay tahay dhanka diinta sababtoo ah diinteenu islaamka waxay leedahay wax la yiraahdo sadaqo waxayna leedahay wax la yiraahdo zako taas oo laga qaado dadkeeda aqniyada ah loona celiyo dadkeeda fuqarada ah taas oo ugu yaraan isku soo dhaweynaysa nolosha dadka balse qofka haddii uu aaminsan yahay diinta Hinduuga ama Buddhistaha ama waxyaabo kaleeto ama lo'da uu caabudo ama dameerada iyo wax lamida ama qoraxda diintiisu ma amrayso inuu bixiyo wax la yiraahdo zako oo siiyo fuqarada deegaankiisa ama uu bixiyo sadaqo uu siiyo dadka fuqarada deegaanka la degan haddaba waxaa suurtagal ah hal magaalo inaad ka hesho qof aad qani u ah sidoo kale tan aad ka hesho qof weysan hoy oo ku hoydo haddaba haddii aan nahay dadka muslimiinta waxaan iskula dardaarmaynaa in aan iska yarayno wax la yiraahdo israafku waxaa la yiraahdaa qofka uu isticmaalo wax ka baxsan ka dheeraada zaa'id noloshiisa ka ah inuu isticmaalo ayadoo weliba dadka la nool ama dadka lamidka ah aysan helaynin sidoo kale tan waxaa laga yaabaa qofku inay ka soo raacdo wax la yiraahdo il dad badan ayaana aaminsanayn wax la yiraahdo il laakiin wal aynu xaq waxaa laga hayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ishu inay xaq tahay haddaba waxaan halkaasi kusoo koobaynaa muuqaalkeenii gaabnaa aan kaga hadlaynay Shankar Kurhandi oo ah ninkii xirtay face mask-kii ugu qaalisanaa ee abid haddaba waxaan idinkaga sii tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo wada socod wanaagsan halkani waa Hami Media Thank you.